Asalaamu calaykum. Waxaan rajeynayaa inaad fiican tahay meel walbood iga daawanaysid hadda. Maanta miiska waxaa inoo saaran habar qashay, jarjartay, karisay, cabtay maraqa, cuntayna hilibkeeda saaxiibteed ay guri kula noolayd. Ma jug bay ahayd madaxa u dhacday mise waxay ahayd dad cun. Waxayse noqon kartaa cadaawadda intaa la eg ee saaxiibteed u qashay u jarjarto maraqeedana u cabto. Bal aan bilaabo. dhacdadan waxay dhacday bishii 7 2015 waxay ka dhacday magaalo la yiraahdo St Petersburg oo ku taala dalkaasi Ruushka. Mid ka mid ah wadooyinka magaaladaas baa waxaa ku yaala dhismayaal qadiim ah. Dhismayaal aad u hore oo fara badan oo sida silsiladii sida u taxan. Dhismayaashaas waxay leeyihiin hal midaba oo ah midabka brownka ama bunniga loo yaqaano. Malahan balakoon qurux malahan wax laga bedela malahan iyo wax lagu dara midna. Marka dawladda hoose waxay go'aansatay inay dhismayaashaas agagaarkooda ku samayso ku talaasho geedo una samayso beero iyo xoogaa doog cagaar qurux badan maadaama dhismayaashan ay yihiin dhismayaal aad u qadiim oo u foolxun. maalmaha ka mid ah baanin aagaas degan baa wuxuu soo kaxaystay eeygiisa si uu xoogaa eeygiisa u soo socodsiiyo isna uu soo socdo. eeyga markuu marayo dhismayaashaas la siman yahay buu ninka ka cararay. waxbuu uriyay eeygu ka cararay ninkiina wuxuu bilaabay inuu eeygiisa ka daba cararo sidoo u soo qabsado. dabcan eey bini aadam iyo xayawaan isku orod ma aha wuu ka dheereeyay markiiba bac meesha taalay qashin buu jeexay wuu furay waxaana ku arkay ninkii markuu eeygiisa meesha ku soo gaaray luga bini aadam oo go'an oo meesha yaala. intuu qaboobay ninkii bay xaadu istaagtay kadibna wuxuu wacay oo wargeliyay booliska markiiba meesha yimid waxayna baaritaan ku sameeyeen dhammaanba haamaha meesha yaala ee qashinka lagu rido ama foostooyinka qashinka lagu rido bay baaritaan ku sameeyeen si ay u helaan qofkan lugihiisa la jaray meesha ku jiraan madaxiisii xayla madaxu kumuusan jirin jirkii kalena uu ka maqnaa. baaritaan badan markay ku sameeyeen waxay ka quusteen madaxii qofka oo way waayeen. markiiba askartii waxay dhexda ka galeen arrin la yaab leh oo maskaxdooda ka weynaatay iyagoo ka cabsi qaba inay ku dhacdo sida 12 sano ka hor ku dhacday. 12 sano ka hor waxaa ku dhacday isla sidan oo kale inay ka helaan qof jirkiisa la googooyay qashinkan xaafadahan areadan ay ka helaan qashin qof jirkiisa la googooyay oo qashinka lagu soo daray. qofkii markay raadiyeen si ay u aqoonsadaan qofka uu yahay waxay waayeen madaxiisii. arrintaa waxay qaadatay in badan inay raadiyaan kadibna way iska xidhantay markii dambe qadiyadii. marka iyagoo tii ka cabsi qaba bay waxay bilaabeen inay iyagii dib isugu noqdaan. 12 sano ka hor markii ay taa dhacday waxay bilaabeen si dil dambe haddii uu u dhaco ay u heli karayaan caddayn ama meel ay u raacaan ama dilaaga ama qofka la dilay ay u ogaan karaan waxay ku rakibeen kaamirooyin. dhismahan oo dhan iyo aagiisaba waxay ku rakibeen kaamirooyin. waxay dib ugu noqdeen kaamirooyinkii inay soo daawadaan dabcan sanooyin badan bay ahayd marka waxay qaadanaysaa waqti badan in baaritaan lagu sameeyo. maalmo markii la baarayay waxay soo ogaadeen dilaaga. markaad maqashid qof baa la dilay marka maskaxdaada waxa ku soo degdegaya Soomaha nin baa wax dilay. xayla qof inta wax hadishadee dunida rag baa wax dilay inta badan dumarku waxba ma dilaan inta badan. way dilaan dumarku wax laakiin way ku yaryihiin ragga kaga badan wax dilka iyo wax googoynta iyo waxaas. iyagu waxay u haysteen dilaagu inuu yahay nin balse waxay ogaadeen dilaagu inuu yahay qof dumara oo waliba yahay habar waayeela. kaamirada waxay ka dhex arkeen habar waayeela oo la yiraahdo Tamara Samsonova oo da'deedu tahay 68 sano deganna oo ka degan apartmenti dhismayaashan faraha badan ee meesha ka dhisan. bay ka arkeen kaamirada waqti saq dhexe oo habeenimo iyadoo bacaha maaragta qashinka lagu rido. dhowr bac kolba mid soo bixinaysa banaanka qashinka geenaysa soo noqonaysa haddana mid kala qaadaysa geenaysa 5 bacood iyo digsi bay geysay meesha marka. 5tii bacood iyo digsigii ay geysay 4 iyo digsigii gaariyaasha qashinka qaaday. bacdii u dambeysay oo ahayd bacda lugaha laga heli doono waxay ahayd bac yaro culiso waxay dhigtay meel ka durugsan meesha qashinka loogu talagalay marka gaarigu saas uu uga tago bacdan. mahmahba waxay ahayd qofkii ilaahay ceeb kala maarmi waayo bakeeri baa ka soo dhaca marka bacdan waxay ahayd bakeerigii ka soo dhacayay ku fashilmaysay habartanu. markiiba waxay yimaadeen habartii gurigeedii waxay kale ogaadeen marka askartu habartan Tamara Samsonova inaysan deganayn apartmentigeedii iyo gurigeedii ay ka guurtay oo la degan tahay naag ay daras yihiin oo lagu magacaabo Valentina Yulanova
oo iyadana habar waayeel da'deedu 79 sano tahay. habartii gurigeedii markay yimaadeen islaantii bay qabteen waxayna geeyeen oo u taxaabeen xabsiga iyagoo doonaya inay wareystaan sababta dilkan ku kaliftay inay geysato iyo qofka uu yahay ay dishay. waxaad isleedihiin soo maaha marka qof la xidho si looga soo saaro sirta marka hore waa xogaa baa la ciqaabaa la cadaabaa. habarta waa la garaacay oo dee habar weyn wax kale lagu samayn maayo dhowr dharbaaxiyo waxbaa lagu dhuftay siday runta u sheegto iyadoon waxba lagu samaynin bay runta iska qaratay. waxay tiri gurigaygan iska deganaa gurigaygu wuxuu ahaa guri fool xun waa nacay kadibna waxaan saaxiib aanu ahayn islaantan dariskeeda ah ee gurigeeda laga soo xidhay markii la xidhay laga helay. waxay tiri islaantan baan gurigeeda la soo degay oo gurigeedu iga qurux badnaa saaxiib baanu ahayn maalmihii horeen isla soo degnay sheekadu aad bay isugu kaya baxaysay dad isku macaan baan ahayn ceesho milix baan noqonay xaalku maasha allah buu wax kaste maasha allah ma isdihin laakiin ana ku daray wax kasta waxay ahaayeen bay tiri sidii loo baahnaa. maalmihii dambe waxaan bilownay inaan wax isku yara qabsano oo wax isku yara khilaafno. maalinka habeenka ay dilayso maalinkeediina waxaa dhex martay arrin weyn oo aad iyo aad u weyn oo laba qof ama ay isku dishadee ama ay maxkamad isku saarto. waxay isku qabteen bakeeri shah lagu cabay adigu dhaq iyo adigu dhaq adigu dhaq iyo adigu dhaq waana dhaxalgal ah idinka aan idin siiyo waana dhaxalgal ah qof walba oo la nooshahay qofku doonaha ahaado weel aad isticmaashay oo wax ku cabtay ama waxaad ku cuntay meel ha uga tagin hadii kale waa lagu dilayaa waad aragtaa sheekada. waxay isku qabteen intaas hal bakeeriyo shah lagu cabay adigu dhaq iyo adigu dhaq. intii markay isku khilaafeen maalinkii habarta wax dilaysa Tamara waxay aaday suuqa oo iska maqnayd waxay timid waqti dambe waxay soo gadatay kiniinka hurdada. habarta cashadeedii bay ugu dartay kiniinka hurdada hal xabaa ku filan qofka bini'aadamka inuu seexiyo ama laba xabaa ku filan qofka bini'aadamka inuu seexiyo markuu cuno. waxay siisay kiniin badan ba intay burburisay oo daqiiq ka dhigtay bay cuntada ugu dartay. habartiina markay cuntay taagniday ka dhacday maxaa yeelay qofka hal xabaaba seexin karta maxaad u malaynaysaa haddii lagu siiyo kuuratan dhaafa. habartan waxay siisay kuuratan dhaafa ama xad dhaafa in 5 neef oo geela kaniin seexin kara bay habar kaligeeda siisay waayeel iska haydo iyadoo sii socotay kowdii hore. habartii meeshii bay jikada iskaga dhacday saacadu markay tahay 2 habeenimo ama 2 habeenimo dee saqdhaxa markay tahay ama 8 saac oo habeenimo sidaan Soomaali u naqaano markay tahay bay jikada ugu timid markay aragtay habartii oo dhimatay meesha yacni ku miir daboolantay ku dhacday waxay damacday inay qaado oo musqusha geysa siday halka ugu qasho. habartii markay istiqaad ee qaadi weyday u jiidmi weyday bay istir halkeedaba ku qal. daris markaad leedihiin dariskaagu cusbayr markay ka dhamaato dariskaaga loo doontaa sokorta markay ka dhamaato dariskaaga loo doontaa yaanyada markay ka dhamaato dariskaaga loo doontaa. habartan inay waalan tahay islaantan ay rabto inay qasho waxay ku jarjari lahayd miinshaartay ku jarjari lahayd bay dariska ka soo tobal caareysatay ka soo qaadatay. miinshaar bay dariska ka soo qaadatay. habartii waxay bilowday inay ka jarto qoorta iyo labada gamcood way soo qaaday digsi bay ku riday biyo ku shubtay dabkay saartay. hooyooyinka Soomaalida awlaadooda markay u bootaynayaan waxay ku dhihi jireen ballan waxaan ku qaaday hadaanan maraqaaga cabin. marka de waxay ka wadaan inaan intaan ku qaloon dabka ku saaro ku kariyo aan maraqaaga cabo iska booto. habartan waxay kaga dhabaysay inay saaxiibteed maraqeeda cabto. maraqii bay cabtay hilibkii bay wax yar ka cuntay wax badan kama soo cunin intii kalena qashinkay raacisay oo dugsigay ku qaaday. marka habartan ma aha markii koobaad ee qof dilayso mana ahan markii koobaad ee qof bini'aadam hilibkiisa cunayso. dad badan bay soo dishay waxay si gaar ah u jeceshahay inay cunto sambabada maadaama ay jilicsan yihiin. sambabadii ya beerkaad ka qaraabataayo taan loo qaaday ahayd soo maaha. si gaar ah habartan waxay u jeceshahay sambabada inay cunto sambabada aadamaha. sambabadii bay cuntay intaa yar madaxii iyo gacmihii ay karisay maraqay ka cabeen u malaynay inuu macaanaade kolley way cabtay iyo in yaroo hilibay ka cuntay. waxay tiri habartan sababtan ku dilay waxay ahayd markaan iskhilaafnay intii isku khilaafnay waxay igu tiri iga tag gurigeyga ii dhaaf gurigaaga ku noqo. anigana waxay tiri gurigeyga waa nacay gurigeyga wuu fool xumaa gurigeyga ma doonayn inaan ku noqdo iyada wehel ii ahayd waan isfahamnay halkan baan ku haystay marka waxaan islaa intaad gurigii ku noqon lahayd habartan qalgabigeedaba.
askartu waxay baaritaan u aadeen gurigeeda waxay ka heleen waxa loo yaqaano sixirka madow, kitaabo sixirka madow ah iyo buuggeeda xusuus qorka oo ku qoran 3 luuqadood, Ingiriis, Jarmal iyo Ruush. waxayna ku qortay 11 dil oo geysatay iyo sida ay u geysatay. Si buuxda waxay ugu qortay 11ka dil ay geysatay iyo sida ay u geysatay intaba. tii ugu dambeysay waxay ahayd gabadh yar oo ardayada oo la soo degtay inay cunto. Marka habartan ninkeedii waxaa la waayay markii sanadku ahaa 2000 meelu ka baxay lama dilin lama xidhin, meelu ka baxayba waa la waayay. Halka askartu markii dambe ay ku tuhmeen ama ay ka shakiyeen inay iyadu qalatay maadaama dad badan habartan u qalaysay wax u jarjarayso waligeedba aad u malaysay inay kawaan ka shaqayso. kadib 2000 ilaa 2015 sano gurigeeda qol ka mid ay kareyn jirtay marka oo kale u joog mar walba ahaa dadka dhalinyarada wax baranaysa ama qof dalxiis u yimid wadanka wuxun bay ka kareyn jirtay kolba qof socday ka kareyn jirtay. marka 12ka qof waxay u badan yihiin dadkay guriga ka kareynaysa inta badan ee la degayay iyada. buuggeeda xaashi ka mid ah waxay ku xustay inuu la degan yahay noolo qariiba oo la yaab badan oo cabsi badan cid aan iyada ahayna noolaha ma arko. noolahaasna waa noolo guriga kula nool oo ay sababaha u badnaa ay guriga ugu noqon weyda marka habartu caydhisay ay ku kaliftay inay habartan disho kow ka siiso. kadib maxkamadda la geeyay si loo xukumo. maxkamadda markay sii galaysay maalinka la xukumi rabay marka wax dhacaan dadka maaragtay saxafiyiintu way soo cararaan Soomaha wariyeyaashu iyo journalistayaashu say sawiraan iyo kaamiro iyo waxba la kala cararaan. dadkii wariyeyaashii meesha yimid waxay islahaayeen dee qof habar yaro nimanka rag iyo dumarkuna isku mid ma dumarku way ka cabsi badan yihiin rag xoogaa waa ka yargeysan yihiin dumarka. xataa hadday gudaha ka cabsanayaan waxay muujiyaan xoogaa inay geesi wali yihiin cadow jabis camal. habarta marka waxay islahaayeen habar yaro nolosheedu iska 50-50 tahay wax lagu xukumi doono aan ogeyn oo cabsanaysa aad arkaysaan bay islahaayeen. habarta maxkamadda markay sii galaysay wariyeyaashii meesha taagnaa kaamirada ka qaadayay shumis bay hawada u raacinaysay ma malaysid ba habar la xukumi rababa. maxkamadda markay tagtay oo qaadigii la fadhiistay qaadigii uu xukumay wuxuu ku xukumay xabsi abadaa amrigaha ku furtaa. markii sida xukunku u dhacay qofkii u horeeyay sacbiyay iyada ahayd. way waalan tahay habartan waxaan anigu ku fikirayay habartan waa jug bariga yareed bay madaxa u dhacday. maxaa yeelay waxaa la yiraahdaa dilayaasha dadka wax dila maaragtay dhiig caba aadamaha intooda badan xuub ka mid ah xuubabka maskaxda baa maaragtay wax noqday baa la yiraahdaa. marka habartan waxaan u maleynayaa bariga yareed bay hooyadeed ka dhacdo madax u dhacday. halkan haddaan isla soo gaarnay oo sheekadan dhamaysatay waan kaaga mahad celinayaa. muuqaalka haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya ama aad jeceshahay channelkan inaad ka aragto qaybta hoose ee faallada noogu reeb. waynoo muuqaalka kan xiga insha Allah nabad iyo caafimaad baan idinka tegay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.